habeen walba niyada miyaa la cusboonaysiinayaa bisha ramadaan marka la soomayo jawaabtu waa haa la siyaami liman lam yubayit الصوم بالليل على معنى الحديث قفك صوم لها دانو habeenki tabiid ku sameyn niyada tabiid habeen walba soo niyo niyaduna ma aha erayo la akhriyo nawaytu sooma qadin taasi daliilka kuma sugna waana markaad afurto ilaa markaad suxuuranayso niyootaun inaad aroorti soomi doonto intaasay kuugu dhanto waa soomka faradka ah soomka sunnaha gelinka hore la niyoon kara hunqaacada iyo soomka haddii aad iska hunqaacisay soomkaagu wuu jabayaa caafimaadkaagu hadduu doonaysa ha ku jiro laakiin hadday hunqaacadu kaa xoog badatay soomkii ma jabayo sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku caddeeyey marka aduu ficila ku yeelan hadduu kaa xoog batay waad ka afdhaqan doontaa soomkiina waad sii wadan bahasha xaakada iyo duufka iyo sidaa la idiin sheegay waxba ku khilaafi mayna culimada masaladu aqwaalidaha jirta laakiin sidaa hore la idiin fatwooday u qaado su-aasha kale ee ah taraawiixda in guriga lagu kitaabka qur-aan ah intay ruuxa dumar ay ka akhrida inay guriga ku tukatay iyadii eelku ma bannaantay mise waa in dushuu laga akhriyaa qur-aanka waa laga akhriyi karaa wey jawaabtu kitaabka qofkii aan dusha ka haynin misxafka waa ka akhriyi karaa sidii caaishaba addoonkeedii ama ninkii ay xoraysee tukinaya uga akhriyayay misxafka markaa misxafka in laga akhriyo salaaddii waxba uma dhimayso weliba qofka aan dusha ka haynin ninkan odhanaya hablaanu tarxiilinaa ama meel geynaayo mushqaayad ka qaadanaa inaad shaqo kala raadsataa kuu fiican hablaha haddii la waxeeyo ama la uureeyo ama la addoonsado ama inkaara lagu sameeyo dee kii waalidaa ayaa ugu dembi badan bilaa maxram dumarkaa qofka kaxeeye dayacaa u horseeday dembi badan buu leeyahay marka fitno badan baa ka iman karta gabadh dhallinyaro ah oo keligeed la geeyey meel qurbo ah oo weliba dad laga yaabo si xun inay u adeegsadaan mucaamaladeeda markaa ilaahay arsaaqadiisa meel kale ka raadso wixii horena ka toobadkeen su-aasha kale odhanaysa salaado badan baa iga tago tiradoodii ma garanaya maxaan yeelaa jawaabtu waxa weeye inta u badan un qaado qowlkeenu ka duulaynaa waa ka jumhuurta ee odhanaya qofka salaada ka tegay ogaanba ha uga tagee wuu soo qallaynayaa maadaama aanu xeradii islaamka ka bixin markaa inta ugu badaneed isleedahay waad soo qallayn karaysaa soo qalleen markaad faralka tukato faralyo kale u raaci halkaad sunnayaasha ka tukan lahayd qallihii wad sidii soomkaba aad u qallaynaysa su-aasha kale waxay la xidhiidhaa qaadkaanu masruufsanaa maxaanu yeellaa qaadku culimmada islaamku see u bateen daliilku xoojinayo waa inaanu xalaal ahayn xaaraan yihin marar badanna waynu ka fatwoonnay idaacadaha iyo tifiyada waanaynu sheegnay weliba xaraamun lidaati wa xaraamun lilaazim buu noqon laftiisa waa maado ku jirta qaybaha mukhadaraadka sida hay-adda caafimaadka adduunka daraasadooda aad ka akhrii kartay caddeeyeen bagaaliya islaamka la caddeeyey waxyaabo soo laasimayana oo ku xidhiidhsanna xaaraan buu ku noqon karaa oo ay ka mid tahay inuu cibaadada kaa luminayo nidaamkii qoyska khalkhaliyey caafimaadka bulshadeenna waxa dad waashay boqolkiiba 80 bay dhakhaatiirta maskaxdu sheegeen inay jaad la waasheen dhaqaalaheennii oo barakac inagaga dhacay waxaasoo dhan waa waxyaabaha soo laasimaya ku xidhiidhsanaysta xaaraan ka dhigaya sidaa daraaddeed booshari fura baynu leenahay xaawalayda ku howlan ee kolayga dul fadhida meel yaroo sandaqadoo khudradda iyo hilibka iyo waxaa ku iibiso ayaa ilaahay ku barakayn doonaa sidii qaar horoo bedelayba loogu barakeeyey shaqada bedela wixii horena allah kaa dhaafo ducadana waa u raacinaynaa waxaan leenahay faraj khayr qaba iyo arsaaqad xalaala allah idin siiyo وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله أعلم